السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalayga qaaliga ah meel walbo joogtiin aad baan idin salaamay kusoo dhawaada channelkayga Queen Dunia masha Allah Queen Dunia maanta waxay idin wadaa cashadaas quruxda badan masha Allah waa hilib ari maraq hilib ari laga sameeyay iyo rooti casho iska fudud oo masha Allah gurigaagana ku sameysan kartid oo iska sahal ah marka insha Allah waxaan idin la wadaagayaa waxyaabihi aan ka sameeyay iyo qaabka ugu fudud aad adigu ku sameysan kartid gurigaaga adigoona wax rooti ah soo iibinin marka qaar waxa waaye meelaha oo lagu gado karo way ka fogaan kartaa sida anigoo kale hadeer way iga fog tahay anytime no waxa waaye waad u baahan kartaa wax yar iska fudud gurigaaga ku sameysan kartidna waaye marka intii taqaan way taqaanaa intii aan aqoonin insha Allah inay ka faa'iidi doontaa rajaynaya waxaan jeclahay waxyaabihi aniga ii sahlan oo aniga aan ka faa'iiday inaan idinkana idinkaga faa'iideeyo masha Allah rootigaas quruxda badan waxaan ku sameystay gurigayga iyo maraqayga sidoo kale aniga hore waa idinku sheegay hilibka marwaliba waxa waa bilaa u dhigtaa fridge-kayga gashtaa sidoo kalena waxyaabahan kale rootiga waxa waaye hal mar aan sameysanayaa xoogaho badan adiga ay isticmaali karo 2 jeer oo kale ama 3 jeer kadibna waxa waaye asagana sidoo kale waan keydiyaa fridge-ka galiya oo rootiga qaybta kor freezer-ka dagashatid kama halaawayo halaga faa'iideysto taasna waa idinku talinaya inaad sameysiin hal mar waa baceynaysaa baca ku xirxire kadibna qaybta kor oo fridge-ka gashanaysaa kama halaawayo uu ku ooli karaa wax badan haddii aa hal mar wax badan soo gadatid waxa waa ku cabaysan kartaa marka halaga faa'iideysto midaasna waa idinku darsanaya aniga waan ku faa'iiday masha Allah hawa anytime ma sameyn kartid laakiin hal mar inta xoogoo sameysatid waa xareysan kartaa waadna ku baxsanaysaa quraac casho waxaad doontida ka dhigan kartaa daarti sandwich ahaan u sameysan kartaa rootigana nooca jeceshay ku xiran tahay ayuu noocaad sameysan kartaa marka ila daawadayaan warka idinku badinayn sidii aan u sameeyay insha Allah intaan shay oo meesha ii taala rootiga ka sameeyay rootiga aan sameysanayo waa kiilo sokortaas waxaa qaaranka isticmaala ma wada isticmaali dooni koobkaas caana waan ku qasanaa caano qandaca waaye saliida caag igu jiro iyo hal xabo ukun ah iyo cusbo intaas waaye intaan ka sameyn doono sokorta qiyaas isticmaalayo qaadada yar waxaan ku shubanayaa 4 qaado laakiin hal qaada dib kaga darsanaya waxaan arkaa inay igu yar tahay hadeer waxaan ku darsanayaa hal xabo ukun ah ukun inta jeceshaa ku darsan kartaa 2-3 hal waa ku darsan kartaa burkaaga iyo inta qasanaysid leedo ku xiran tahay qaadadii shanaad hadaan ku darsaday oo sokorta marka walaalayga qaaliga qof walba familkiisa ku xiran tahay iyo intuu isticmaalayo qiyaastiisa daartid waa badsan kartaa ukunta waxaan ku darsaday 2 qaado saliid ah ayu nooc saliid ah heli kartaa ku darsan kartaa hadeer aan saliid cadayda caadiga aan ku darsaday cusbo yaraan qiyaasanaya aan ku darayaa rooti waxa waaye same waaye qasitaankiisa waxay ku kala duwan yihiin bas sida adiga rabtid haddii adiga macaan aad rabtid waxa waaye sokorta la u badsanaysaa haddii rooti caadi aad rabtid waxa waaye rootigaaga sokorta ku yareynaysaa waa sidaas waxaan ku soo darsaday 2 qaado oo leebata ah 2 qaado leewta ku soo darsay marka casari ama quraacda ka rabtid oo yara fudud waxa ka dhigan kartaa oo sokor la rabtid inaad ka sameysatid rooti macaan oo hot formaaj ama wuxuu ahaadaba ah sokorta u badsanay laakiin rooti maraq lagu cunayo haduu yahay ama dhaxdu wax laga gashanayo waxaad ku sameynaysaa sokorta ka yareynaysaa inta kale qasitaanku waa isku wada mid kuntan waxa waaye waa u badsan kartaa hadeer waxaan ku darsaday koobkii caanaha qof walbana waxaan dhahay familkiisa ku xiran tahay qiyaastuu rabo aan hadda kiila rabaa inaan qasto adiga familkaaga hadii uu badan yahay waxaad sameyn kartaa ka badsanaysaa sokorta wax yar ku darsanaysaa xoogoo kordhisan ukunta sidoo kale marka sidoo familkaaga yahay ku xiran tahay mar waliba insha Allah waxaan rajaynayaa inay fahanteen hadda si fiican aan u qasay caanihii iyo sokortii ukuntii isdhex galiyay caanaha isticmaali kartaa caana budada isticmaali kartaa inta qasatid caanaha diyaarsan caadiga isticmaali kartaa caano waa caano indhahaas soo yeelatay kadib hadda waxaan sameynayaa burkii hadana ku darsanayaa nus kiilada u horeysa furanaya
mashiintan aan ku qasaayo hadhow rootigu waa in la adkeeyo u baahan yahay wax yar inay adeeg noqoto. tanna waa tii keega loogu talagalay, waa iska dareemi kartaan. marka ma qasi karto zaaid, xabadan u horeysa la ku qasaayo kadibna waxaa waaye gacanta la gali doonaa, isoo dhex gelinaya. inta kale tartiib tartiib gacanta ku qasan doonaa. tan waxaa waaye way ii sahlinaysaa. inta ugu horeyso oo burka uu jilcan yahay la ku qasaaya. markuu burka yara adkaado ma qasi karto, waa inaa ka bedeshaa mashiinta. gacanta marka iskaga qasanaya inta kale oo ii hara. intii kale aniga tartiib tartiib u dhameysanayo, saa ula socda. burkan waxaa waa inaad si fiican isku dhex gelisid oo si fiican iskuga cajiintid oo si fiican u qastid waayo rootiga. haddii rootigaaga si fiican uusan u qasnin waxaa waaye rootiga hadhow kii kuguma soo bixi doono, jileec iyo qurux intaba kuuma noqonayo. waa kana waa isoo dhexgeliyay, ma rabin inaa idinku sii dheereeyo kaamirada ama fiidiyaha, ma rabin inaa idinku sii dheereeyo. waa isoo dhexgeliyay. hadeer waxaan rabaa inaan bacdaas ku daboolo. bacdaas afkaga daboolaya. bacdan waxay kaloo faa'iido badan ay leedahay burka isla markii soft ee kaaga dhigaysaa, si dhaqsi ah ama haraka aan uu kugu soo qamiiraya. marka walaaleyga laga faa'iideysto insha Allah. aad u fiican tahay, dhaqsiba uu ku soo qamiiraya. meesha sugi lahayd 1 hour ayada waxa ku sugaysaa 30 minutes oo kale, sababtoo ah waxa waaye way isku huurinaysaa. waxa waaye afka dhan ay ka daboolmaya baaquligi ama shaygi adiga markaas waxa ku ridatay hawadan ma galayso. marka sidaas ay ku fiican tahay, aad u fiican tahay, laga faa'iideysto. gaar ahaan waxay ku sii fiican tahay waxyaabaha oo burka laga sameeyo kale, wuxuu doona ba noqday. marka bacda markaas saas ugu daboolo waxaan sugayaa 30 minutes inta maraqiisa sii karsanayo. maraqan karsashadiisa bilaabaya kadib u soo noqon doona. kadibna waxaan bilaabi doonaa inaan rootiga sameysto. hadda waxaan sugayaa 30 minutes. waa aragtiin 30 minutes kadib sidaas uu igu soo qamiiray. saxankii aan rootiga ku gashan lahaa inta ii yaalo oo foornada aan ku gelin lahaa, bur yar soo marinaya iyo saliid. kadibna waxaa waaye insha Allah waxaan bilaabayaa rootigii inaan jarjaro oo sameysto. qaabka aad rabtid waa u sameysan kartaa, laakiin aniga hadda si fudud lee rabaa inaan u sameeyo, waxna dhaxda kama gelinayo, caadi rooti caadi ah lee rabaa inaan ka dhigto. markaasaa ula socda, waana jileec. waa aragtiin burka. waa kana hadda rootigii waan soo fidiyay. kadibna waxaa waaye waa jarjarayaa. laba nooc u sameynaya insha Allah, mid oo caadi wareeg round ah iyo mid oo waxaan sameyn doonaa duubka caadiga oo rootigii baan oliga dhihi jira camal oo duubna wareega lahaa. aan ka rabaa inaan ka dhigto. marka sidaa ula socda insha Allah. waa hab iska fudud u sameysan kartid adigoona oo waxa waaye time kale ka dhumin. dad qaarkood waxa waaye meelaha way ka fog yihiin oo lagu gado macmacaanka rootiga kale waxyaabahaas, marka waqti ay ka qaadanay inaa xagga aadid. wax yar oo iska fudud guriga ku sameysan kartid waaye. dad qaarna dukaamada lagu sameynaya u dhow. anigoo kale hadda hindiya la deganahay. hindi waxay jeceshahay jabaati iyo waxyaabahaas le baahane badana iyo naan iyo waxaas ay jecel yihiin. rootiyada saan oo kale kama heli kartid, iyo wax macmacaan dhexda laga geliyay iyo waxyaabahaas ka helaysaa. marka saasa u sameeyay. kii ugu horeeyay idin tusaayay wareega saas uu ku sameysmaya, iska sahal waaye. midka labaadna waa idin la wadaagaya. kan kalena waxa waaye kuuskuuska caadiga oo roundka ahaa waaye, kaas qof walba yaqaano. marow inaan waqti idinkaga dhumiyo ka qof walba sameyn karo. waa kuuskuuse bas meesha la dhigaysaa. kanna waxa waa isagana sidoo kale uu iska fudud yahay, saas la wareejin kartaa. round le saas u sameynaysaa oo wareeg ah. waxyara hoos iskugu riixay marka aanu isku dhigaa rabtaa mugtaa dhowsan ka kala foqin. saas la sameeyaa marka. anaaniga insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan idinkana, intii oo ila midka ah oo shaqadood ay tahay maalin kasta ay qabsanayaan oo daily work ay u tahay. waxa waaye ka uu yaqaanaaba uma baano inuu barto. waxa waaye danta bartay somaha saana u soo sameeyay. kuwana roundkaas ka dhigay, kuwana kuuskuuska caadiga. kuuskuuskana u badan saxankayga foornada gelinaya insha Allah. 180 aan ku dubi doonaa. 180 u geynaya 30 daqiiqo ku jiri doonaa insha Allah. saa ula socda.
akana maraqiina intaan ku jarjaranayaa hilibkii dabka ii saarnaa hilibka waa soo kariyay hilibka ariga waxaa biyo ku saaray wuu soo yara karay kadib had inaan dalacaa bilaabaya karootadii yaa jarjartay basasha jeexaa jarjaray iyo baradho 3 xabba jarjaran doonaa 3 xab baradho oo qiyaas waaweyn waaye qof walba qiyaastiis asaga oo inta ku filan aniga baradhada yar yar ka zaa'idka loo jarjaro ma jecli sidaas u jarjartaa oo waaweyn inay ahaato soo muuqataan jecelahay markay bislaato qof walba waxa siduu jecel yahayna asaga la u jarjaranaa ay ku xiran tahay digsiga dabka ii saaran horaan kaga sii shubayaa aka wixii oo dhan inta isku geeyay hal mar isku wada geyn doonaa hilibka laakiin gooniya u kariyay oo biyaan ku kariyay koran kaga soo darayaa le hadda qudaarta isku darsanaa saa ula socda baradhada marka saan loo jarjaro kaama jajabeeso zaa'id waxa way ku muuqanay intaas ay ku fiican tahay aniga saas u jeclahay hilibkii hadda kor kaga soo darsaday cusbeyraan ku darayaa sidoo kale hilibka biyaan ku kariyo uu ibsid yahay hilib ari waxa hal mar isla ma saari kartid waa inaad koo soo karisaa si sahal oo igu soo kara pressure cooker kale oo isticmaalaysaa 5 minutes diyaar waaye xawaajiyaasha isku dardarka hadda ku darsaday xawaaji isku dardarka waxa waa ku darsaday wuuna ii diyaarsan yahay hal weel oo igu jira horena waa idin tusay haddana waxaan ku darsaday maraq digaag qiyaas inta adiga arabtida ku darsanaysaa sidoo kale inta waxaan ku haystaa zucchini iyo jeex basal oo wareeg u go'an iyo barbarooni jaalaha oo asna jeex kuwan marka gadaalan kaga sii darsanayaa foornadii ay kulaanayso wali rootiga meeshu ii yaala ma gelinin hoos foornada waa inay soo kulaataa markay kulaataa la gelinaysaa 180 aan u geynaysaa saa horeedi ku sheegay 30 minutes tartiib rootiga iskaga bislaanaya dhaxda ilaa gudaha meel walba soo marka hadda barbaroonigi iyo basashii inta ku jarjaranaya iyo zucchini waa ka asagana hal xabo waaye oo yar laakiin zaid uma weyneen qiyaas caadi waaye asaga wuxuu la mid yahay sida basashii waxaas gadaala loogu daraa zaid inuu bislaado lama rabo wax yar inuu dabka soo maro le 2 jeer uu soo wareego le la rabaa kadibna waxa waaye waad ka dijinaysaa basashii iyo barbaroonigana marka dijisid laba kor kaga daray wax yar basashii iyo barbaroonigu ka hormarayaa le saasa marka ku soo wadanaya kuwan waa ii diyaar intii kor aan kaga shubi lahaa waaye markuu maraqa ii bislaado baradhadii iyo karootadii ay karaan meeshaan ku sii shubanaya baaquligan xiro iska fudud oo casho fudud waaye maasha Allah oo adiga gacantaadana ku sameysatay rootigaagana fresh inuu yahay hubtid waana casho dhameystiran maasha Allah maraqaaga waxa dhan way ku dhameystiran yihiin wax walba inay gurigaaga ku yaalaan fiican markaad adiga bixaysid soo gadaysid walaa waa wareer xogo ma fiican ani ma jecli maalin kasta xitaa baxilib soo gad walaa ma jecli markaan xagga joogay xitaa saas ma yeeli jirin oo wadankeena joogay mar walba waxaan sameyn jiray hal mar jumla iska soo iibsan jiray jumladana ku fiican waxaagan waxa way ani time adiga imaatid waa ku tuuranay waa ku diyaar hadeer baradhada way bislaatay zucchini aan ku daray barbarooni iyo basasha inta ii yaalaan marka zucchini xoogo yar inuu la soo wareego la sugayaa 2 jeer camal wareegto kadibna waxa kuleysadan ku shuban doona basasha iyo barbarooni kor kaga daraya maasha Allah waa kana saxankii markaan ku soo shubay inta kala kuleysadeeda ku shubtay rootigiina waa kana uu soo bislaaday sidaas quruxda badan oo iigu soo baxay maasha Allah tabarakallah intii haysata Allah u zaa'idiyo intii aan haysanina Allah siiyo walaalayga insha Allah waxa rajeynaa inaa ka faa'iideen sidaas quruxda badan oo inoogu soo baxay zucchini zaid uma karinin barbarooni basasha kor le kaga daray ayagana ma bisleynin hilibkeeni waa biseel rootigeena waa ka sida quruxda badan soft waaye meel waliba waxa waa guduud maasha Allah kor iyo hoos intii hartan waxaan gashtay fridge-ka xogo badan aan sameystay
anaga hal mar ma wada dhameyn karno laba jeer camal waa isticmaali karnaa maasha Allah waan kasii badsan kartaa xitaa waxa 4 jeer 3 jeer isbuuc isticmaalisid waa ka dhigan kartaa oo fridge waa gashan kartaa rootiga isma bedelo ma halaabo hadduu ka harana fridge ka gasho qaybta kor oo barafkaana la geliyaa isma bedelaayo waa soo bixinaa kuleyne sidiisu jilic kugu yahay waa isticmaali kartaan quraac iyo casho intaba maasha Allah sidaas quruxda badan oo inoogu soo baxay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontiin idinkana intaanan aqoonin sidoo kale waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhiirigelintiina la joogiina iyo sida quruxda badan mar walba ila socotaan video kasta aan soo geliyo aad u daawataan sidoo kalena waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin asxaabta iyo walaalaha ila joogaan intii aanan ila joogin oo igu cusubna waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaa oo channelka subscribe saar gambaleelka furo sa u wada socono mar walba video aan soo geliyo aad u daawatid oo ku dhaafin sidoo kale videowada bilaaw ilaa dhammayso aan ku dhihi lahaa walaal qaali ah soo dhawow meel walba joogtid asxaabta cusub igu soo biirta iyo walaalaha cusubna waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada mar walba channelkayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.